darteen oo shii cusbay waxay furtay buukalo darteen oo shii cusbay waxay furtay buukalo waxba sakay badal kabaxay hawadii adkay hadda dad badan baa soo qabsaday heesta waxay leeyihiin Soomaaliland baa lagu afuufayaa maxaa looga jeedaa bal dadka aad u qarxi imika 200% dhageystado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وانا اكسمل كسودنا دي عليك شوفتن قاعد سودوا هذا مركز كريسة كان كانت صومرتنا ضيتها وحنا سبسكرايب وشيركم وتوتكم محسنتك من شنو كسوبريتك عادي بدكم محسنتك كلام قلت نعطي لما انت تمط الصوماليين مركز سودنا كنت عليك شوفتن وحقاق اسكسون نقول شو انا اكسم هذا لايك جايز مركز لي مقال عصوب ان شاء الله عبد الله الكريم واحد على سنة كحضو مقال كتير برها برشدة اما سوشيال ميديا وهاس انه معنا العصا صاري في هره او فيدباك بدن كسو نقد طبعا سادكور هيسين ونوعية بدن kala duwan loo qaada dhigay siyaabo badan kala duwan yaani loo qaatay horta waxay Soomaalidu hore ugu maamulada ereyga nin sii qaaday miyahay talo wax saasayaan jirta aad dabcan ma isku fiicneen markaas waxaan jeclaysanaa taa ka hadla hadii Ilaahay ka dhigo oo aan insha Allah Ilaahay kala islaageen macna la soo hadlay bal hadaba macna la waxa uu keenay haystiisan aan soo eegnay bal in yar soo arka waatan waxa ku gaadhay 300 oo keebade marka ma sha Allah heestaas like غير انت لايك نيو horta heestaasi waxaan soo saari lahaa waqti hore laakiin waxa way qornadana xilligan soo saaro sax jijiga birigan joogan reena soo saaro sax laakiin wala sugisay maalinteeda maalinteedii wada maanta noqotay because of wax kasta waxa la yiri marka la soo saarayo waqtigeeda iyo situationkeeda ayaa la sugaa aad iyo aad wana aragnay jacayl baa ku qabanaya heesta xilligii jacaylku hay ma soo qaadi sidii xilli uuna jacaylku haynin baad soo qaadaysaa aad iyo aad marka ma sha Allah hadda dadku qolaba dhinac u qaaday sax way siyaasadeen asxaabtidu waxay leeyihiin macaan markaad laga tagtay wadna soo horgufaysaa kale aniga heestan nimcaan oo saad imka noo sheegtay waa hees mar hore la sameeyay Soomaa mar hore la sameeyay heestan jijiga markaan joogan reena soo saaro way suurtagal weeyday okay agis hadda dad badan baa soo qabsaday heesta waxay leeyihiin Soomaaliland baa lagu afuufayaa dad baa maaragtay xitaa aniga la sida su'aalo la soo weydiiyay maadaama aan in badan wada joognay intuu nabiseemka waxa la yiri war heestan niyahow maxaa looga jeedaa bal dadka aad u qarxi imika 200% dhageystado niyo horta heestan dhinac waxa uu ka kacay waa xagga siyaasadda la talax tagay sax laakiin niyo heestan waa dawo كان صعد كيدو تهاي عائلة dadka kala maqan iska bulada iska soo darantahay iska dulqaatan leeniyo wallahi billahi ma sha Allah amin hees aad ma caawiyaan dad badan oo asxaabteeda kamid ah oo ay soo wada diray aniga u diraa la soo diray hadana sanad jaadahan marka miraheeda aad iyo aad u fiican yahay macno aad iyo aad laakiin niyo Soomaalidu waxa noqotay wada xasrad ereyga tirada meel kale loo kacaya يا سومال وين مرجع ليري ماشي لو تشيديه اسك قلد اسك waad aragtay ma filayaa dabcan macna la wuxuu ka hadlayaa heesta iyo waxyaabaha ku saabsantay iyo heestu inaan heest siyaasadaysan aan ahayn dabcan Soomaalidu inuu waxay aaminsan tahay markii qof isayaan ma meel shmeela ama dawlad haysa ama qof shakhsi ku kacsan wax ku soo dhaxdo inuu tahay inuu isaga ku wado ama isaga ku socoto dabcan ayuu dabcan laakiin macna la heestu in heest jacayl tahay dad yacni kala tagay oo adigu kala dhamaaday in heestan yacni dabcan loo qaadayo iyo qof nolol cusub bilaabaya iyo qof nolol cusub helay labada biisha ku kala saabsiin aad iyo aad biraantay qof kasta uu fahmi kara oo garanaya abaanka sameeyna kale la weydiin karaa balse laakiin heestan inay sarbeeb ahayd dawarkeeda dhayda ka cad dabcan maxaa la ilaa buug cusub baan fariyo xoosa ku jira dabcan heestan wadaagtiya hadana waxaan helay qof bili aadan oo wanaagsan bashaasho jecel wax saas ma yahay dabcan ayaa ku jira markaas ma aha hees yani lagu tuhmi karo in loo wada Soomaaliland dabcan tamarka hore waan aaminsanaa dadka inta badan fanka ku dhex jira ama falanqeeya ama fanaanta ama abwaaninta dabcan way dareemi karaan markasta heesta la soo qaado say u dhigan tahay dabcan wala dareemi karaa waxa jira heeso fara badan oo fanaaniin soo saaraan oo dadku u qaataan jacayl laakiin aad iyo fara badan dabcan markii baad ka dareemaysiin inay tahay heestan hees lagu wado ama dawlad ama maamul ama koox ama qof lagu wado mararka qaar xitaa waxa dareentay inaad ka dareemi karto heesta qofku ku socotay inaad direct xitaa u dareemi karaysid dabcan oo ka tuhmi karaysid dareemi karta qofkaas xitaa ku sugan heesta inuu abaan ku yar dhex qaldan mararka qaar
iyo kala fogaanshaha iyo soo dhawaanshaha iyo aragga xasaasa in dabcan ay jirto balse laakiin si kastaba ha noqoto weligeed ilaahay bay dhicin jirtay dabcan ilaa wax u malaynaya fanaan Soomaaliyeed weeyaan dabcan ma aha fanaan caadi falaysan ma aha fanaan cidna nacab ma aha waxa jira boqolaal beach oo lagu soo qoro Soomaaliland wacankan Soomaaliland kala kan kale dabcan oo aan isagu lahayn waxna ta ogahay dadka xitaa ku soo publish gareeya beachana haysan jiray weligeed ilaahay dabcan kiisa rasmiga inuu yahay boqolaal kun maraya ninka iska dhaxtay ka deer saaxiibana dabcan aad ba soo naqaana waxaan u haysan jiray waxa dhacday xitaa beriya kamida inaan ka soo qaato xitaa boost uu soo dhigay oo YouTube-gii kula soo wadaagay islaamkiisa caadiga balse laakiin waqtiyada ugu dambeeyay waxa soo baxday in la wax page verification la raado page kala verify karayo inuu soo baxay dabcan oo taal ugu kala cadeynayay macnaha page-kiisa runta ay ka beentaa si kastaba ha noqoto hadaba fanaanka horta maaha fanaanka wax caadi fadaysan maaha wax cid u socda maaha wax maaha yani dawlad gooni matala maaha wax maamul gooni matala maaha wax koox gooni matala maaha qof shakhsi kaliya matala maaha dabcan markaas waxa qurux badan dabcan in fanaanta inuu ixtiraamno fanaanta xitaa inaan qibladooda xitaa cayn inaan halku soo jeeda cayn fanaanka inuu ku tixgelino inuu fanaankan soo fankii Soomaaliyeed inuu dhabarkiisa ugu sido inuu yani dabcan aynu ku ilaalino inuu yani ku tixgelin aad wanaagsan tahay horna mar walba wada ku sheega dabcan fanaanku waxa weyn qofka kaliya ee aan shicibkiisu aan lacag ku siinin inuu hees soo saaro marka shooyadii iyo aroosidii waxa ma sheegin taan uu shaqeynaya shaqo weey balse laakiin wax laga maanta oo kale tusaale waxa ku soo qaadanaya hees uu soo saaray Sultan Seraar waa hees waqti badan la geliyay meelo badan baa la geeyay waxaan ka dareemay heesaas inuu juhdi badan waqti badan habeen badan oo dhaxay dabcan haddana waxaan arkay dad badan hees sidii maaha la moodey maaha caynkan maaha seen kala maaha intaas waqti waxa laga yaabaa lacagta ku baxday dhaqaalaha galay inay gaaraan $1000 ku xisaabtan qofka jigjiga ka imanaya sanadii ceeriga hees ku soo duubay waqti intii laga galay marka laga yimaado musiciankii erayadan ki sameeyay ninkii laxanka saaray waxaas oo dhan marka laga yimaado dabcan intii laga waqti geli karaa dabcan si kastaba ha noqoto qofka intaas waqti kula wadaagay waqtigiisa iyo chance-kiisa inta ugu badan dabcan ku siinaya wax wanaagsan aad go'aan ilaaliso oo aad bulshada ka soo dhaweysato oo markasta inaad caynad ka ilaaliso caarada iyo caayda iyo waxyaabaha caadifada inaad ka ilaaliso mid aad iyo qurux badan weeyaan mid anaga sharaf weeyaan fankiina wuxuu ka hormari karayaa inaan qofka yani dawlad laga dhigin inaan meel la geenin inaan la oran waa maamul inaan la oran cid waayay taas ay ku wanaagsan أنا صار نقول هستن مع اللاعب طبعا سأصاب بحظي يسامن تأييرتي طبعا كنت المامي كرا وهست والله يكتبنا ويكبر كنت المامي كرا ما أنت الله بيجي لبعضنا كن الله يجي مرسا وكنت المامي كرا ما أنت وندي مرسيني مرسي يطبعا كن الله يجي طبعا وعادي رانت اللي هو قادم ويويان هس عادي صام بدويان وحكوني شيء هس سوا صارين كين جامع عقلية استيد بقول بمرسا تنا ما تلح بقول بمرسا وحن كنت كرنامة قياس كرنامة ما قلت تنبيه إني قاعدوا 1 مليون حتى هس تاسي هس سلطان سيرانيو 1 مليون قاعدين إن هس طبعا لو قلت المامي كرنا إني وح كهلا صار رمة وتشرع dadka markay kala tagaan si ugu wanaagsan qofka markay kala tagtaan inaad yani nolol cusub raadiso un weeyaan tabaan qof badan wada socoteen ama isqabteen ama adigu xirdeed ka dhaxay ama isqaba ama wax kala had ka dhaxay markay kala tagtaan inaad buug cusub bilaabisid ama inaad raadiso xagad wax ka bilowdo tabaan wax iska jir way taasoo wax warigeed ilaahay soo jireen way ahayd weeyaan sidoo kale heesta waxaan ku tilmaami karaa inay cadeyn karto qof kasta waxa calooshiisa ku jira tabaan in banaanka keeni karayso waxaan ku tilmaamaa heestan dabcan inaan ka dareemay oo ku arkay min yani qofku hadda artay heestaas yani heestaas inta badan istaatiyada soo dhigaya ku soo celinaya waxa ku jira taan hal ogaad heestaas qofku ka cabanaya qof baan ka tagay aad iyo aad ma sha Allah aad bad maasan dhamaantii markii soo dhinay joogtaan waad ku maasantii kabnaashin ku soo biritaankiina kalaam korkina dhamaan umada Soomaaliyeed dhamaantii markii soo dhinay joogtaan insha Allah billahi kariim inta muuqaalka wuxuu ku kulmi doono waana gudi kaga tagay wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh